soo kordhinay pilot boat cusub oo iyaduna ay fuuli doonaan bayloodadu maadaama hogaagu la shir tagaa berigii hore waxaanu bayloodka markabka soo xiray waxaa lagu qaadi jiray huuri yar oo injineer 40 saaran yahay markuu hoos tago ama kusii socdo markabka weyn ee sida 10,000 container waxay moodi jireen babur cadbadeed sharaf dhacna waxa ku ahaa qaranka jamhuuriyadda Somaliland laakiin hadda waxaan usoo iibinay pilot boat cusub oo aad arki doontaan insha Allah taasoo qalabkeedii isgaarsiinteediiba leh marka alxamdulillah rabbil caalamiin waqtiyadii hore waxa ay dekadu dhibaato kala kulmi jirtay la socodka dhaqdhaqaaqa maraakiibta maraysa badaha waaweyn ee dunida hadda waxay hay'adda dekaduhu ay ku soo kordhisay dekada aaladda Vessel Track oo ay hawlwadanadu dekadu kula socon karaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada maraakiibta dunida maraya markabka soo socda magaciisa meesha uu socdo speedka uu socdo dekada uu tagayo inta waxa ku siinaya VTS-ka ama Vessel Tracking System-ka Motor Vessel OK August Berbera for control xafiiskani wuxuu qaabilsan yahay isku xidhka shaqada dekada hadday tahay wax ka soo gelaya dibadda iyo hadday tahay wax ka baxaya marka u horeysa ee laga shaqaynayo wixii weer ah ee soo gelaya xafiiskan waa xafiiska ugu hor ogaada waxaa jira port control oo ah controlka laga hago maraakiibta maraysa marinbiyoodka Somaliland iyo kuwa ku soo xiranaya dekada port controlkaasi 24 hours shaqaaluhu way isbedelaan waxaa ku yaala qalab aad u kala duwan raadaarkii baa ku yaala radiogii lagu hadlayay maraakiibta ku yaala IS baa ku yaala sheegayay markabkaasi noocu yahay waxaa kaloo ku yaala Vessel Track wax la yiraahdo oo aan ku aragno caalamka oo dhan maraakiibta soconaysa dekad kastana aan isdul taagi karnaa markabka la saaro kiiga automatic uu soo saaraya numberkiisa halka uu socdo uu xusido destination keymiga uu socdo marka waxaanu haynaa oo port controlka laga maamulo sida diyaaradaha kale dabeedna waxay u baahan gurmina halkaas ka hadlaan oo halka laga controlo operationka dekada oo dhan iyo markabka la furayo la xirayo waa controlka laga hadlo hadda dekadu waxay awooday in 700 ilaa 800 oo markab sanadkiiba ay ku soo xidhaan taasi oo ka dhigan in isticmaalka dekada uu kor aad u weyn ku yimi intii maalinta ka dambaysa maraakiibtu way sii badanayaan imika qiyaas ahaan bishii waxaa noo yimaada inta u dhaxaysa 830 ilaa 45 markab marka sanad ahaan marka la isu geeyo waxaan noqonayn inta u dhaxaysa 750 ilaa 800 markab labadan markab ee aad arkaysaan waxa la kala yiraahdaa MV Caadil 1 iyo MV Xaaji Qusaan J waana maraakiibta qaada xoolaha loo dhoofinayo wadamada Carabta sayidku weydina ku arkaysaan waxa dekada ka baxaya geelaas tagaya laba wadan oo kala ah Masar iyo Saudi Arabia markabka waxa la yiraahdaa MV Caadil 1 wuxuu qaaday 2630 geela waxaanu tagay Saudi Arabia waxaanu ka tagi doonaa insha Allah dekada Jidda kala arkaysaan markabka kale waxa la yiraahdaa MV Xaaji Qusaan J isna wuxuu tagi doonaa wadanka Masar waxaanu qaadayaa xoolo geel dhan 1500 oo neef xoolahan iminka bilihii u dambeeyay way socdeen runtii wadamo badanna way tagaan oo Sacuudiga iyo Masar iyo Cumaan iyo Bahrain iyo Yemen ay ka mid yihiin habeen walbana ka baxay dekada Berbera
markabkana waxa uu ka yimi waddanka Maraykanka waxaanu sidaa shixnad mucaawino ah oo ay leedahay hay'adda WFP uguna tala gashay dalka Itoobiya. WFP oo dhammaan badeecadaha agabka kala duwan iyo weliba macaawinooyinka kala soo degi jirtay dekedaha dariska ah ayaa hadda go'aansatay in 60% agabkeeda iyo mucaawinada ay keenayso bariga Afrika inay kala soo degto dekeda magaalada Berbera. ammaanka dekeda iyo kan baduba waxa uu muhiim u yahay shaqada dekeda Berbera oo la rabo inay u shaqeyso si la mid ah dekedaha ficeeda ee adduunka. sidaas daraadeed waxa amniga gudaha dekeda lagu ilaaliyaa kamarado fara badan oo kuwa ammaanka oo lagu xidhay gudaha iyo dibadda dekeda si loola socdo dhaqdhaqaaqa dekeda. halka dhinaca badana ay ka ilaalinayaan ciidanka badda Somaliland oo ku qalabaysan qalab casri ah. dad nabadgelyadu ka shaqeeya dad wuxuu ka shaqeeyaa kontrabaaga dad wuxuu ka shaqeeyaa dakhli xiraynta oo wuxuu badda u ilaaliyaa oo wax alliya wixii kalluumaysata sharci darraha ee soo galaya u ilaaliya. ciidanku 24 saacadood wuxuu u diyaar yahay isagoo qaybsan inuu ka howlgalo wax alaale wixii baddeena sharci darro ku soo gelaya wixii cadow ah dhaqdhaqaaqa ka socda gaar ahaan dekeda. marka dekedaasi cusub ee 400 mitir ah lagu daro guud ahaan dekeda weyn ee Berbera ay waraabin doonto inta badan bulshooyinka Geeska Afrika.